hop kusoo dhawaada xarunta garis baa leeyahay muqdisho dalmo shaahid عندنا ما دلال ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان من فؤادي ليلى وعن القرآن حين لانا كم من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعن القرآن حين لانا فإذا وعن القرآن اقرأ أخيها ورتل القرآن اسمح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان إنسان هذا العصر أهمل روحه ولم يعد في روحه إنسانا هو تائه متخبط متذبذب متردد ولم يزل ابعث به روح التقى بتلاوة تستنهض الأرواح والأبدان. بسم الله الرحمن الرحيم. maanta waa maalin jimcaha taariikhna ay ku beegan tahay 27 bisha maaj 2020 waxaa noo qabsoomay quraan akhrinta degmooyinka waxaana ku qabsanay degmada Garis Valley. waxaan u mahad celinaynaa degmada Garis Valley maamulka oo si wanaagsan noo soo dhaweeyay. waxaa quraan akhrintan maanta u marnay inuu Ilaahay uusan noo keenin cudurka coronavirus oo adduunyada saameeyay. sidaan la socon adduunyada aad u dhib ugu haya cudurka uusan keenin. marka dhalinyaradiina soo ajiibtay ururka daryeel bulsho ururka danwadaag raalnaqda ururka danwadaag oo nala qayb galay quraan akhrinta waan ugu mahad celinaynaa. marka aad u mahadsantiin Ilaahay cudurka nooma keeno mahadsantiin. bismillaahi raxmaani raxiim. yarada Garis Valley mudane Cabdirashiid Cali Dubad sida quruxda badan wanaaga badan ixtiraamka ku salaysan mid maamul iyo mid dhalinyaro intaba aad nagu soo dhaweeyay. sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa dhalinyarada quruxda badan ee halkan saacadihii la soo dhaafay quraankan ku wada akhrinay allahna ku baryanay in ummadda islaamka ee xanuunsan Ilaahay caafiyo in musiibada dunida kala xiray ee coronavirus la sheegay inuu Ilaahay na hareer mariyo. saakay marti ku nahay wada joognaa Garis Valley waxaan uga mahad celinaynaa sida wanaaga badan ixtiraamka badan dhammaan dhalinyarada iyo maamulkaba ay noo soo dhaweeyeen. magacayga waa Maxamed Nuur Xasan waxaan ahay afhayeenka ururka danwadaag muddooyinkan dambe wuxuu waday quraan akhris oo alle loogu baryayo in musiibada iyo dhibaatooyinkan dunida kala xiray inuu Ilaahay na hareer mariyo. wejigiisii labaad maanta waxaan ku qabanay Garis Valley. ujeedooyinka quraan akhriskan loo bilaabo waxay ahayd inuu Ilaahay dhibaatada naga dulqaado inta xanuunsan inuu Ilaahay caafiyo dadka barakacayaasha ee deegaankan Garis Valley ku nool inuu ayagana
raxmaan raxiim. Jimco wanaagsan. Maanta oo bisha Shacbaan ay tahay 3 sidoo kalena bisha March ay tahay 27 aan rajeynaa inay tahay sanadka 2020 bari iyo quraan akhris. Sidoo kale fadhiga quraan akhriska waxaa joogay dhalinyaro ka timid degmooyinka gobolka Banaadir. Sidoo kale waxaa nagala qayb galay ururka danwadaag iyo sidoo kale dhalinyarada Garis Baalley oo 6 waxood ka socotay ayaa barnaamijkan nagala barigan u sameynay in aan ilaahay uu dhinaca naga mariyo cudurkan adduunyada safmareenka ka dhigay ee coronavirus la yiraahdo oo wadamada bariga Afrika iyo adduunyada oo dhan dhibaateeyay dad badanna ku laayay. Waxaan ilaahay ka barinay in cudurkan uu gees naga mariyo badbaadiyo. Sidoo kale waxaan u duceynay barakacayaasha Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Garis Baalley ku nool in deegaanadooda ay dib ugu laabtaan dhibaatada hadda ay ku jiraan ilaahay uu ka saaro. Dhammaan inta muslimiinta ah ee xanuunsan ama dhibaatada ka qaado ayaan ku duceysanay. Fadhigan waxaa noo fududeeyay suurtagalnimadiisana inuu qabsoomo ka shaqeeyay oo aan u mahadcelinaynaa maamulka Garis Baalley gaar ahaan gudoomiye Cabdiraxmaan Axmed Cali Garyare oo laantiisa wax badan aysan qabsoomi lahayn. Waa mahadsantihiin dhammaan nagala qayb gashay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. أولا horta ilaahay mahad celinaa subxaanahu wa tacaala. Taaniina waxaan u mahad celinaynaa dhalinyarada noo soo boqotay ururka danwadaag oo maanta ku qabtay Garis Baalley quraan akhris. Horta ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala inuu noo aqbalo quraankaas. Dhibaatooyinka jirana uu naga badbaadiyo. Waxaan aaminsanahay maanta inuu la sameeyo oo muxuu ahaa dadka aad loogu wacyigeliyo meelaha dabcan bulshooyinka isugu yimaadeen. waa qadar Allah arto ma shaa facal wixii ilaahay keeno cidna ma celi karto laakiin dadaalku waa la isfaray. ilaahna wuxuu leeyahay wala tulqu biidikum ila taluka nafsadiina taluka ku ridinina waa aayad quraana. waxaan markii leeyahay taluka ku ridinina maahan example haddii meeshaan cudur laga sheego xilliga waxay jirtay saxaabada marka rasuulka kaleey sallallahu alayhi wasallam xilligiisa waa jirtay waxa daacuna dilaacay ummadda halka daacun ka dilaacay saxaabadu waa lagu go'doomiyay intii ku jirtana kamaysa bixin ilaa cudurkaas laga bogsooday intii ka maqnayd soomaysa gelin. marka meesha waxaa ka muuqata inay tahay nas daliil inay tahay meesha ka muuqatayba oo muxuu ahaa haddii cudur yimaado meesha uu ka dhaco example hadda qof hadda ku dhaco tusaale ahaan qofka inuu faafiyo sax maaha. dadka gaalada inta badan waa baaba'een aad baaba'een marka ilaahay ma aaminsana xaqiiqatan. qofku waxa la qabaa inuu balowdleeyo khamrigiisa ka cabo sigaarka cabo samabiis awalba iska liitano tacbaan iska ahaa haddii haddana cudurkan ku soo dhaco waxa laga yaabaa inay inta badan bay u dhintaan. naga wada dul qaado muxuu quraan akhrisna waxa la ilaahay subxaanahu wa ta'aala noo aqbalo. waan aad ugu mahad celinaynaa ururka dhalinyarada danwadaag waa ugu mahad celinaynaa mar labaad martaa iyo bahda saxaafadaba. muxuu ahay maanta waa maalin jimca waxaan rajeynaynaa ilaahay inuu noo aqbalo subxaanahu wa ta'aala. maanta waxaa ku jirta kulli saacad la aqbalo saacadinta ilaahay baa yaqaano waxaan leenahay saacadis ilaahana la kulmay ilaahna noo aqbalo intii muslimka waxa leenahay ilaahay ka badbaadiyo. khaasatan reer Garis Baalley waxaa ugu badan dad barakacayaal oo masaakiin ka soo barakacay muxuu ahay goboladan dalka ma dhahayna qaxooti waaye laakiin barakacayaal ka soo barakacay meesha ay deganayeen duruufo jira awgeed ha noqoto abaaraha jiray iyo ha noqoto colaadaha ka socdaba. waxaa leenahay abaaraha ilaahay naga dul qaado subxaanahu wa ta'aala. colaadan waxaa leenahay ilaahay maxaa ta'aala ha naga dhameeyo waa uu dhibaa iska jiro adduunyadana waa iska imtixaankan waxa la baahan in lagu samro. muxuu ahay waxaynu u baahan tahay go'aan iyo muxuu ahay azmi ilaahay wuxuu leeyahay azmata fatawakkal ala Allah go'aan qaado ilaahay tala saaro. anaga go'aankeena wuxuu yahay inaan ummadan u shaqeyno ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa tala saaranaynaa. intii soo aabshay shirkana waxaa leenahay dee mahadaha ka gaartay insha Allah ta'ala oo quraankan la akhriino waxaa leenahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala kulligeen baa noo aqbalo intii ka wada shaqeysan waxaa leenahay ajri xasan ilaahay aan soo koobi karo ilaahay ka siiyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.